markii la gaaray xilliga canshuurta wuxuu leeyahay lacag badana iga dhuntay lacag faqri ah lacag ma haysto wixii dhan uu financial documents ku beenka sheega waa anagoo hadda adoo $100,000 ku soo gasho oo dhahdid 5,000 ay soo gasho waxaas markuu sameeyo haye markii oo hadoo rabo inuu wax deen soo qaatane deen markuu soo qaatan muxuu sameeynaa markaa deynta markuu qaadanayna lacag badana haystaa uu leeyahay because inuu kor u qaado raba deynta soo qaadanay bal fiiriya tuuganimadiisa marka waxaan rabay qofkii wax ku darsanaayo arintan dadka walaalaheena ku baraarujinayo in aysan aqbalin in anaka fraud nugula sheego ku soo dhawaada baba zeed aad ma santahay meesha joogtidna noo sheeg meesha joogtid noo sheeg waa noo muhiim asxaabtan way iga soo horeeyeen ayaga ixtiraam aad baan u jeclahay Cumar iyo Safa way iga soo horeeyeen hadda waxaysan ku soo dhawaada wayna ka dambeeyaan insha Allah warlajinaad baa ku salaamay gudoomiye aan waxaan joogaa council magaalada Green Bay صح ku laalahay niyo horta niyo Soomaalidu ma taqaanaa Soomaalidu iyada la isku diray hadduu hal shakhsi khalad sameeyo hadda maanta alaano kale adiga maalin dhaxdeed niyo aanoo meel jooga ilaa markis meel public aan joogay oo video soo geysan daawanay midaa wuxuu ku leeyahay maxaa ka daawanay kan sagiba kuwan inoogu caade meelaha soo socday social media ku jira waa beenaalayaal adeer ana hadda lagu soo xiraa asaga baca lagu soo xiraa kaas adeer waxaan dhahay adiga ana daawanay telefoon ana iska dhahay adigu meelaha kala tag waa lagu xiraya waxaan daawanin dadkan fiir wax ka shaqeynayaan Soomaalidu iyadaa isku fiir weyn qofka khaladkana weligaa khaladaada samee dulmaada lahayn lama qaato ma fahanti waxaada khalad adaan waxaana maanta aan lahayn oo sameynin hadaan ka baqa ka war waa sax waay dad ba waxay ku leeyihiin Soomaalidu waa noocan shakhsi baa laga yaabaa inuu wax sameeyo aysan anigu ma sameyn Soomaalidu dhan ma sameyn mid kale fiiriya hal mid ay idin sheegaa weligiin ma daawateen shooyaashan ama waxyaabahan oo cadaanka dadka oo dambiilayaasha waxaan daawan jiray mid la yiraahdo to catch a predator waxa la qabanayo oo guryaha galaayo oo ilmaha abuse gareena waa cadaan ayagoo la dhahayo loo qabsanayo ma aragteen haye American Greed showga la dhaho waxa malaayiinta dollar dhacayo waa cadaan weligood ayagoo cadaan fraud la dhaha ma aragteen ya wadankan aan joogno ayaga boobeen Native Americanka ay laayeen dhulkoodii xoogeen waxaasoo dhan ay haystaan Black African American inta keensadeen ee intaas oo 100 sano ku shaqeysanayeen ay darbiyada ku dhajin jireen lynch ku sameyn jireen dadkaas aniga say igaga sheekeen karaan marka ina aniga ahay fraud waliba hadda mid xun oo la dhahayo ii sheeg Matt Walsh wuxuu ku leeyahay dadkan dhaqankooda waxaas ku jirta dhaqankooda ya oo ayaga dhaqanka ay haystaan muxuu yahay adduunyada dhan ay gumeysteen oo ilaa ay hadda ay haystaan dhaqanka muxuu yahay ku soco waa dad been isku sheegay ku soco walaashiis maxaan ugu darsanaysaa adigana iyo haasha meesha joogto noo soo sheeg aniga idinka dheeraa laakiin dhiigeena la jiro waaba saas war waxaan fiiri kulligeen isku dhiigana maxaa yeelay qofa adiga haddaan ku weydiinaa qof Soomaali ah oo qaraabadaada ah ma ku nool yahay Minneapolis ha fiiri ina hal qoysna hayaan ku tusaa Soomaalida ya qof kasto family meesha u joogo ma garatay walaasha laga yaabaa hooyada laga yaabaa adeerka laga yaabaa dadkaas la dhibaateena Soomaha inay meel ku xanuunto haday joogi lahayn xataa way xanuun leed maalkasta fiideo waa aragnaabo waa ogahay laakiin dadka qaar waxay ku leeyihiin meeshaas ma deganida maxaa ka galay ana hadda ma deganida qof walba guriga ka soo baxwaano iyo xaasnimada waxaa ka yeelaysa inay wax ka galeena ku sheega ninkan hadda meeshaan nagu caynooyo oo nagu dhibooyo Mareykanka uma dhalanin ninkan dhaha Elon Musk South African waa ya inanka fiideo wareejina oo dheekara soo duduway mise meelaha in wax lagu barmagacaad meeshaas ma degan meel oo dheekerka oo tagaayo gobol kasta oo tagaa Minneapolis intoo dhashte ما يعسى عدان waa Mareykan waa laakiin ayaga dadkooda Europe ay ka soo jeedaan asarkooda Soomaa anigu naagtii dadka dhib jirtay aad xal ka shaqeynaysay iyo naagtii sida ninkaas oo kale inuu soo ooyaan rabaa naagta ninkaas cunuga yar malaw Laura Mullen balaha maxaa ku dhacay ma taqaanaa dadka ku jira uga sheekeynaa naagtaas waa la kari waayay ilaa ninka la yiraahdo Sami Hamdi ma taqaanaa nin Ingiriiska ka yimaado iska maskiin ah oo meel kaas inta ayada tiri moogta hal xirey tiri Donald Trump hore laga xiray moogta
naagtii dulmiga qabanaya naagtii inta dacweysay ee been ka sheegtay kuwa la yiraahdo care oo muslimiinta u doodaan lawyer iwa waxay tiri waa argagixiso waasaan way dacweysay wadanka Mareykanka wuxuu ku fiican yahay hadii laga gar helo waxa adigina lacagtii kaaga baxday in qareenka lawyerka dhana ka qaadan kartaa lacagtii $125,000 la yiri hadda bixi ayadii way ku khasbantaa maxay sameeyeen way bixin jirtay sidii shaqada jeegso kuma soo dhaco dadka ayadaa dirta lacag way biilaysay lacagteeda dulmiga soo daahiro hadda ayaan way taadana dacwo kale soo furtay waxay tiri sidii ay iska daba wareejinayeen waxay tiri waxa lagu daray gobolka joogtay gobolka ay joogto Florida waa gobolkaas waxa lagu daray argagixisada liiska lagu daray markaas gobolka ku daray xitaa wadanka dhan ku dari karo gobolka markuu ku daray waxay tiri hadda waa ay argagixiso waa ay lacag siina kulaha camal ninka qaadiga wuxuu dhahay aday ku taala waa bixinaysaa lacagta way bixinaysaa ayadoo argagixisada oo lacagna siisaa jeega oo qortaa maalinta marka wallahi ayada saas ma aho hadda fiiriya nin kale asagana maanta Jake Lang la dhaho waa ninkii ayaan dhaweyd inta taga meesha uu dhahay kitaabka quraanka guba ninkii dhahay nigu soo noqonaya miya hadana hadana waa soo socya hadana bisha 7 soo socya hadda maanta bishan ma aho wuxuu qaban rabaa orod maanta yimid waba jooga maanta soo tagay meela marka waxaa jirta waxbay ku dhisteen ay sculpture wax la dhaho adiga oo iska art amal ay dhisteen mida wuxuu dadku waxay qoran arkaya ninkii Cabdi Iftiin ahaa waa shaha mid ma soo noqon doona kaas jajus boy soo noqon doona sheekadan dhameeyo meeshii sculpture ka inta tagi waliba fiiriya markay rabaa inay idin sameeyaan Soomaali inay sheegaan waa horta Soomaali anaka waxaan noqon ma taqaana hadda marka anaka ma maqli jirta cirka markuu ka soo dhacayo baalada u maleyn jirna kabso xidig marka aragno gaal ku dhac mal dhii jirno ya sidii camal hadda Soomaali markay rabaa inay idin sameeyaan Soomaali camal meeshuu ku joogsanayo barafka wuxuu dhayaa Soomaalida meesha lama ogolo ninkii saas dhahay 2 saac kadib wuxuu dhahay $6,000 leegu xukumay waana la xiray oo soo gili wala soo maxaa waa fiiri isla ninkii rabay inuu Soomaalida weeraro ayaa dhaxdaasane biyo lagu firdhiyay waa la karbaashay waa la dhibay maanta faataxayaasha la isku daray marka adinka dadka Mareykanka ama meel kasta joogtiin horta kulli in la isku duubnaado oo Soomaalida indhaha lagu wada haayo qof kasta dagaalkan waa inuu ku jira wallahi war aniga ciyaalkeyga uga sheekeeya aan dhahay hay waxa socdo gabar aan dhalay yaris oo 13 jir aan dhahay hay arinta ma ka hadasho waxay tiri iskuulka wallahi iskuulka waxay ku jirtaa kuwa oo group oo arrimo ka hadlo waa ka soo hadlahay tiri birito ciyaalka yariska xitaa in loo sheego waa موجودة محايلة هذيك المسكحة لك أبيوسا هذيك المحل تدكينا العجية دعانة والله عيالك أو مقعدة ببدلنا مش أنا دعاء فيري يا إيش وعكوسو عنا ولكن قرناش ميا معكو مقعد يا قرقاش هذيك أنا نقدر أرنتا معكو درسني صاحب أدو مع سنتين هبين وناكسن باب زيديو أصحابتك هلا لا فلسارن أنا waxaan joogaa Ohio iyo waxa weeye hortani aad baa geesi u tahay saaxiib xog badan waa ku hubaysan tahay Ilaahay ku barakeeyo waxa waaye kelimadaadu wax badan ayay safe gareynaysaa dadkana way waxa hadda maanta waxaan aaminsanahay hubka ugu culus oo maanta la adeegsan karo waa propaganda iyo xog sida loo kala xog badan yahay loo kala ogaal badan yahay ayaa loo kala xoog badan yahay ma garanaysaa cilmiga oo dhan baa intaas ah marka barnaamijkan waxyaabaha hadda qaarkood markay iska dhacdhacayaan like waxa ila muuqdaan dadka qayba waxa u muuqdaan inay iska dhacayaan yani sabab la'aan ama wax la iska yiri ama qolo xanaaqsan ama laakiin wax walba xidid iyo meel ay ka soo bilowdaan inay leeyihiin baan aaminsanahay si aan xogtan u fahmo waxaan u maleynayaa 4 sano 3 sano ka hor ahayd fiideo aan daawaday oo 2 saac iyo waxbuu soconayay sida wadamada iyo bulshooyinka loo burburiyo ahaa I don't know whether inaad daawatay nin raash oo espionage ah ayaa waraysi bixiyay adigu 8-yadii soo galay Canada iska dhiibay soo fakada ka bacdina dhowr waraysi baa laga qaaday jaamacad bay u dhiibeen ninka marka xog badan uu bixiyay oo 2 fiideo kiiba 2 saac soconayo marka asagoo ilaa 5 iyo 10 qodob uu kusoo koobayay sida wadamada looga takhaluso ayadan hal xabad lagu ridinin bulshooyinkana fakada looga saaro
ayaga oo aan saa xabad loo taabsin far la taabsin marka ilaa 15 qodob buu soo koobay maalin kasta markaan dhacdo arko waxa ay hor timaadaa qodobadii uu ka sheekeynayay kuwa ka mid ah dadka marka koowaad in magacooda laga weeraro erayada qaar lagu isticmaalayaa erayada marka lagu isticmaalo lagu soo celceliyo brainwash waxaa arkaysaa dad Soomaali ah hadda mid waxaa jiro kan hadda aan ka sheekeynayno Soomaali cowboy oo Soomaali jajus boy waxyaabaha uu dhihi jiray waxay tahay oo afkiisa ka soo bixi jiray Soomaalida NGO ay furtaan oo dhihi jiray NGO Mareykanka ma ka jiro wax la dhaho ma ka yaqaanaan macnaha waxay u yaqaanaan non profit magacaas ma isticmaalaan magaciyo ka dhaadhiciyay wuxuu yiri markaa imaada NGO ay soo dhaweeyeen waxay dhaheen guri ciiran ku dalbeynaa hebelo waa wixii ayaga rabaan moogta NGO-gii markay maqleen hadda waxaan arkaa wallahi shalay sanadka Congress-ka Mareykanka NGO laga dhahay waa warkii oo asaga laga keenaya qof Soomaali ah warkaas soo yiri warkii la waday waa la sarifay hadda qof hoos wuxuu ugu soo qoray ciyaalka yaroo say wallahiga wiilish ama ilmaha ku dhashay inta ciyaal ma aha ma dhigan dad waaweyn jiro dadka inta ku dhashay ku koraana laga wadaa ama ku koreen and they lacking confidence qaarkood waa confused marka confused waxay u yihiin qaarkood ma ogaan waxa ayaga naftirkooda waxa laga ilaan aad idaacadaha u daawanayaan waxa laga dhaadhicinayaa dadkiinaan oo yimaada dad fiyo ma ahan waa walwaalan yihiin waxbana sameeyaan sharci ma raacaan sanway qaarkooda waxaas qaato laakiinse ayagana mida inaba ina idin sheego wallahi qaarkood badankoodna kuwa badan oo soo jeeda ku jira maxaa yeelay ayaanta hadda weerarka koonu la soo qaadaay maxay dhaheen ma taqaanaa sheekadan Minnesota anaga iska leh wallahi walwalka ee ku rido cunsuriyiinta hadda arki laheedeen sheekadaas ana hadda sheeka aan sameeyaa idin sheegaa laba bari koor ii shaqaysa adinkana aad sameyn kartiin qof kasta i dhageyso inaa Mareykanka joogto xitaa kuma qasbanid because ayagaba meelay joogaan lama oga moogta dadkan hadlay online access u wada haysatiin waxaan soo geliyay sawirkeyga hadda koor anigoo Finland tagay because inbox-ka ii soo geliyaan kuwa maagada ee dhahan bax wadankaada ku noqo moogta waxaan ku dhahay wadankeyga marka Soomaaliya ka filanayaan moogta because maanta dhan Soomaaliya difaaca waxaan dhahay wadankan ka soo jeedaan ku noqonahaan dhahay saydan la tahay Finland aan ku noqonahaan dhahay waa yaabeen marka confuse ku dhac wareer ku dhacay waxay waa ii soo galaan waxay ku dhahan DNA-gaada noo soo dir Finland ma u dhalatay run miya kuwa dad Mareykanka dad jaahiliina ka buuxo aniga waa ii jeedaa ina cadeen waa ii jeedaa Finland waa cadaan wallahi ku badan waxay ku dhahan waa beenta wallahi ku dhahan waa AI picture-kan waa AI it's not AI adaha ku kala ayaga murmay waxay dhahan no it's not AI it's real okay then bal waa dad noocaas oo kale marka waxa ka wadaa markay Trump hadda markay anaga wax nagu sheegaan markaas Trump ka sheekayaan meeshii hadda adduunku waxay ugu necab yihiin marka Trump wax ka sheego waa picture wallahi soo gidayaan dhaxda koofiya anoo gashan oo dhahayo immigrant make America great iyo waxa imaaday aan dhahay Minnesota ka soo degtay diyaaradda aan ku dhax galanoo sawir waxa dhahay promise land ka soo degtay waa picture-kii waxa laga soo biyay 5,000 oo comment laga soo biyay yeah shacabka American 2017 hay-ad ay waxa weeye assessment ay samaysay shacabiyada adduunka la qiimeynayay say u kala xadaaradsan yihiin iyo oo u kala dhisan yihiin moogta shacabka adduunka ugu doqonsan waxay noqdeen dadkan oo ku nool gobolada qaar oo America ku nool gobolada qaar waaba ever waay waxbarashada waay waxa ko wadanka shacabkiisa oo kow galay Suudaan waxaa la dhahay 5 sano isku xigtay banaanbaxayeen hal dhagaxna may tuurin baa layidhi hal qof dhagax ma tuurin baa layidhi 5 sano isku xigtay banaanbaxayeen marka mid kalena waa idin sheega dadkan waa hadda Soomaalida neceb badanaa waxay kuma marsiyoodaan fiiriya marmarsiyada way isbabadashaa hadda lacag iyo business iyo Soomaalida ay qaateen ma dhahooyaan hadda ka hor waxaan xasuustaa gobolka Moyn nin joogay wuxuu dhihi jiray drugs ay gadaan u dhihi jiray macnaha waxaa waa dembiga ma lagu waynayo mar walbaba fuusta noocaha lagu riixa adi marka waxaa la rabaa ina iska ogaatid meesha hadday ku jiraan ciyaal oo dhalinyarada oo English ku hadla wax yar ugu sheegaya the propaganda machine is very powerful the way they make communities they basically the way they want to victimize is to create a situation or scenario or propaganda of how to kind of redefine your identity. Now they want to redefine our identity around fraud and all of that stuff because that to them sells to their base. Xilliga waxa lagu jira doorashada ogaadaya sanadka horta marka doorashada lagu jiro weerarku kulul yahay
hadda waxaa laga yaabaa sanadka dambe in laga dhaco soomaalida oo daycare iyo waxaas iyo business in laga aamusaa laga yaabaa laakiin midna waa idin sheegaa soomaalida daycareka hadda sababta u weerarayaan ma ogtihiin waxyaabaha ay ka xanaaqsan yihiin idin sheegaa shirtooda idin sheegaa aniga waa ku dhex jira cadaankana dhex degana xaaskayga xitaa cadaan waa micnaha waxaa aqaanaa way cadaan ku sheekaystaana oga waxay ku dhiban yihiin inay ilmo dhalaan naagihii oo dhan ilmo ma dhalooyaan wallahi arrintaas iga qora aniga waa faafnay sidii corona camal soomaalida micnaha qofka soomaalida ee naagta soomaalida ee maba ka walwashaba inay ilmo dhasho iskuma soo beerays micnaha waa jiraan dad oraada xoogaha oo hindiya aada waa jiraan laakiin micnaha waxaa ka wadnaa sidii hore waa reer waa waa cadaankaa kuusoo cadaankaa kuusoo hareen waxay ogaadeen wallahi arrintan hadheyeelsanina haddaa dhegaysatid waxay ogaadeen inay ku adag tahay inay ilmo dhalaan way fiiriyeen marka waxay dhaheen dadkan soomaalida 5-6 cunug dhalaayo maseer waa wallahi maseeray ka imaanaysaa waxaan daycarada mida adeendad kulaha magaaladan daycare noqoto kulaha no sababta waxaa waaye ilmo badanaa la dhalooyaa laba naagood bis haddii ilma isku darsadaan 12 cunugaa meesha joogto konton waaye ilaaha nugu manaysta ma oho marka waxay isleeyihiin iskuulaadkii marka ciyaal soomaali ah buuxo way fiiriyaan waxay dhahan wallah waxaa jirta lo replacement theory dhagaystaya waxay soo saareen wax la yidhahda replacement theory macaa waana la bedelooyaa like 50 year hadda oo ka dambaysa ka fikirayaan ha marka waxay arkeen markay taas arkeen meesha kow marka walwalka ku haynaysa maxaa waaye daycareka waa marka waxay dhaheen waxa ciyaalahoo dhan soo meeshaas kuma xaraysnaha way soo baxeen marka waxaysan ka war haynin marka daycarada oo soomaalida qaarkood meelaha qaarkood macnaa hadda oo xafiisyo waaye hadda meelaha waxaa jirta waa taga xafiiska meel ku leedahay waana samayn kartaa meesha xafiiska ku leedahay paperwork iyo waxaas ku samaysaa laakiin daycareka meel kale ku haysataa wayna dhacdaa tiyay tagaayaan waqti meel la joogin sawir soo galaan mid kaloo kulaha ayaan dhexdaasi kulaha dadkan waa tagay meesha kulaha snowga ama barafka raad kuma oolin kulaha raad kuma oolin marka dadkan haddee rabaa irid gadaalay ka soo galooyaan ma barafkay ku lugeynayaan macnaha waa edab daro waxaasoo dhan waa edab daro marka dad soomaali wallahi ani waxaa ciil igu dilay gobolla soomaali qaaraan tagaa soomaali ama xitaa dadka oo wadanka maraykanka ka maqan oo xitaa dibadaha jooga soomaalida ama soomaali dalkii jooga waxay leeyihin yaaqa kuwaan maraykanka waa edab darihin lacag war lacagta lagu soo diro waaye lacagtaas aa ka calaacalaysid lacagtaas baabzeedow waxaa kaloo jira maraykanku muddo 50 sano ka badan kambaniyaal maraykan ah waxay raadin jireen shidaalka ku jira Soomaaliya si ay u qodaan ayagu oo xitaa duulaankii 90 iyo dhowrkii dhacay oo kaleeto ma ahayn fahmin iyo dad baan u gargaaranaa wax iska caday ahayd way musallafeen kambaniyaal badanaa kacay iyaga oo daba socda shidaalka isgeed ku jira Soomaaliya si ay maalin ugu guuleystaan inay soo saaraan 50 sano markay daba socdeen hal maalina waxaa saxiix lala gaaray Turki waa laga hoos gooray waa arrinta oo keenaysa inuu dhaho Soomaaliya waa dad isdhex yaacayo islaynaya wax jira ma xitaa wadan lagu ma tilmaami karo waa arrin oo meel kale ka careysan yahay boogta marka saas ku dhahayo isla Soomaaliya oo wadan lagu ma tilmaami karo ku dhahayo safaarada uga furaya bal fiiriya aqal xumadiis Soomaaliya waxay hadda fadhisaa bishaan waxay fadhisaa security councilka golaha amniga president laga dhigoyaa adiga isqabadsi wadanna ma aha lagu dhahayo golaha amnigana ay xukumaan macnaha waxaas waxaa waaye caay waaye qof kastoo Soomaali inuu mid kalena waxay ku tusaysaa Minnesota bas ma loo socdo meesha lacayna hadda daarta koo Soomaaliya lacayna mid kale arrin kalena waa idin sheegaya kuwa Soomaali xitaa ay aqbaleen waxay dhaheen low IQ waa Soomaalida low IQ waa shar caqligooda yar idinka idin weydiinaya waa taqaaniin Soomaali dadka xariifsan ma jiro ilaahay idinku dhaariyo dacaayad ma laakiin arrintaas day ka keenay ma taqaaniin arrintaas horta sideedaba sharcigan sideedaba testigan IQ-ga la dhahayo waxay ku xiran tahay qofka meeshuu joogo oo soo u sameeyo hadda ayaga qof Maraykan haddii IQ ama imtixaan oo ku saabsan xamar iyo xaafadihiisa iyo yaaqshiid iyo boondheere iyo ka sheekeynayo haddii la weydiiyo wax ma yaqaana haddii la weydiiyo ma yaqaana qofkaas wuxuu helaa low number maho dad xeryaha qaxootiga jooga ee waxay weydiiyeen imtixaan loogu talagalay dadka Maraykanka horta kow meel soo dirada bilaay lambar markay soo qaateen meel kasta markay geeyeen resultigi waa laga diiday waxa la waxaas waxba kama jiraan baxa la dhahay dadkaas waxa la yiri dadkan dhaqanka ay waxana ma bisi qanaan luqadaasna ma haystaan waxa la yiri
deetadaas ama xisaabtaas dhan maba shaqaynayso meel laga aqbalay jaamacadana ka shaqayn jira jaamacadaha waxaas lama tagi kartid su-aasha kuwaada la weydiinaya waxaa lagu leeyahay intee ka keentay sambalka muxuu yahay waa la tuurayaa laakiinse waxaas yaa dhageystay qashiimiin oo barabaganda rab awlka horeba soomaalida oo xarar u haya tii ku dhahay low IQ waay waa kuwo ayaga isla dadkaas ay ka calaacalayaan dadkaas ee low IQ ku dhaan ay ka calaacalayaan ay dhehayaan shaqooyinkiina naga qaateen hal isqabadsii marka qofkaas asoo soo galooti oo saan oo luqadda aqoonin inuu ku yimaado oo kaa doqonsan saa sheegaysa oo shaqadaada kaa qaata adi maxaa tahay marka that is question midda kale waxaa kaloo jira nimankan oo bariga dhexe la dhex dejiyey Soomaaliya meel kasta UN-ka marka ay kursiga ka hadlayaan Security Council iska badaaba meelahan yani United Nations meel kasta oo ay ka hadlayaan way cambaarayeen madaxda Soomaalidu weligeena wadanka Soomaaliya wadan la dulminayo uu operate gareyn jiray uu garanaysa uu difaaci jiray صح nimanka way cambaarayaan waxa ay halka ka wadan waa qalad duniduna inay daawato oo ka sii jeedo way ku ceebayaan nimanka wadna qabad ay ku noqotay marka meel ay u maraan nimankan xiriir lama laha daris lama laha urur ay ku wada jiraan male qaab ay nimankaas u weeraraan way ku adkaatay wax badan ay raadinayaan ilaa hadda ay taraan u dhex mareen ay dhaheen wax gebigoodaba isirka kamar oo salka kamar gebigoodaba yani marka isirkaagii la caayo diintaadii la caayo dhaqankaagii wixii oo dhan xoogaa hanjabin baa la yidhahdaa moogtahay waxa weeye fiir laakiin annaga miday ayaga aysan xisaabinin waxaysan xisaabinin soomaalidii inay isku duubmi doonto soomaalidu wallahi way mideeyeen maxaa yeelay soomaali iska sii jeedi jirtay oo shib iska ahaan jirtay maanta qof kastoo soomaali ah difaacu ku jira wallahi bilah ma iska aniga hadda fiiri nina gacmo wada jira wax ku qabataa xitaa cadaankii hadda sheekadan soo fahmeen nina isla saaxiibanahay oo meelaha isku arki jirno ay wacay wuxuu yiri niyo weliga miyay weydiinina Soomaali ah ciidamadu ku jiri wuxuu ku dhahay niyo adiga Soomaali ma ahayn oo dhaha war niyo wuxuu ugu dhahay Soomaalida dad qatar waay heysay ku gaatana war dawladii dhameedo Mareykanka kula wax kala ma ka hadlowsabay kula ya wax amal la'aana haysano way kula war waa la yaab kula asi marka taraamo nicib yahay wuxuu yiri war wallahi intaas oo sano yiri taraam wax kasta daan ka sheegno yiri ma wana dhageysan jirno dhahay ya haddana afko furaba ilaan Omar oo ku ayaa dhahay hal gabadh daji ma arki miya afka ugu eeg saddexla macsarada marka taas waxay ku tusaysaa marka lagu xamanaayo oo lagu qeylinayo hortaas waxay ku tusaysaa inaad tahay qof power leh ya wixii macna laga hadlaa marka laakiinse kuwa Soomaalida oo naloo adeegsanayo waa inaan iska qabanaa dadka imaqlaayo fadlan dhagaha fura qof Soomaali oo hadaa aragtid anaga dhexdeena waa is dhibi karnaa waa is xaman karnaa waa xarno isku samayn karnaa laakiinse qof Soomaali oo markuu ajaanibka u tago Soomaali caynaa hadaa aragtid ama si u jiibinayo qofkaas uga inuu cadowgaadiyo ogaw wala ilaaha noo qabto because qofka Soomaaliga the lasting oo samayn karo waxaan arkaa ma sheegay hadda magacyadooda qaarkood dada inta tagaan ee waxay leeyihiin Soomaalidan corrupted way wallahi nin kaada Ted Cruz la dhahayo dada la socon jira hadaan dada Soomaaliya lacag siiyo ninkaas dada lacag siiyo ninka saas la dhahayo lacag la siiya hadda ma sheegay groupka lacag siiya ayaga is og laakiin dadka siiyo ogaada ninkaas way fahamsantii mo ina hadda sii sheegaan diidaa waa qof kasta waa fahmi karaa dada lacag siiyo arina anaka leenahay noo riixay dhaheen ninka saas la dhahayo wallahi wuxuu keenay dadka adduunka Soomaalida ugu neceb dadka maalin kasta caayo oo intuu meesha keenay Soomaalida say u caayeen war dadka difaaca cadaana difaaca ka waran wallahi nin cadaan ula wax naga karin anaga caaxeentana galayaan nin cadaana shalay laakiin arrin yaab laha dhacday nin cadaane waxa la weydiiyay Soomaalida inay luqad Ingiriis ku hadlaan Sooma aha la dhahay markaasuu yiri arrintaas waa su'aal qalad oo dhahay su'aashaas oo dhahay waa qalad su'aasha qalad oo dhahay wallahi billah waa loogu soo celceliyay waliba waxa la dhahay Soomaalida soo qasab maaha inay Ingiriis ku hadlaan wuxuu yiri su'aal qaldan waa isla su'aashaas oo kale waxa la weydiiyay mid kan la dhaho Somali Jajus boy ka waran aniga kula English aqaana ku soo celcelina maanta aniga I speak English that guy I don't know what he's talking about fiiri aniga hadda Soomaali ma marka qaarkood kuwa ay amaanaya ma ogtahay waxay ku leeyahay wallahi qatara tahay saan wadanka waa la qabsatay waa idab daran tahay dhahay aniga ii jeedin ku ugu doqonsana aha dhaha Soomaalida ku ugu liita ah aniga waaba leega tagayaan ficay adduunyada inay haystaan ficay taraamay garbaashooyana dhaha ila qabana markaas no sababtoo
adiga sababta lagu ammaanayo in dadkaada hoos loo dhigaa la rabaa mujeeda adi fiiri dad oo cid dhan oo wada doqome ee hal qof oo dhar gashan oo fiican oo shaqaysan hadaarit maxaa leedahay waryaa waraa adaab ciddaas daaba kasoo jeedid oo adiga qof fiican aaba tahe laakiin qofkii haddoo ku dhaho orbax anaaba cidda ugu liitabo cidda caynowsid qofka ugu liitaa aniga kulligood waa iga khatarsan yihiin markuu ku dhaho adiga dhan shaxdi dhan waa kaa qalarin maaho sheekadaasaa rabaa inaa soomaalida inay ila fahmaan soomaalida jawaasiista ah oo caynayo oo rabaan in ayaga la ammaano ayagaas shakhsiyan xun qofkan ku ammaanayo adiga wuxuu ku arkaa kuwaas kale waxa ay yihiin oo ku arkaa markaa baxdid saasuu kaaga hadlaya waxaa la rabaa inaa ogaano ciyaalkeena arrinta anficisa waa generation mujeeda funaanada maxaa u gatay waa maalintii ay isku faayeen wadada markaa maraayo wallaahi dadka dhana istaaga cadaanka waxay leeyihiin intaa kasoo gaday funaanadan itus anay marka intan laga sheekaystaan rabaa froodkeen inta laga sheekaysan lahay in ay soo ku faayo dad dilaayo dad maraykan ay dilaan hadda ani xitaa wax kale waa iska dhaafayba dad maraykan ay dilaan naagay dileen ninay dileen ku hayaale maanta dhan bas maxaa yeelay ayaga dadkan fiiri September 11 goormay dhacday dhowr 20 sano ka hor ma hino meeqa sano ee kaarkaas xuqanayeen September 11 waana la soo weeraray sarahayan dheereeray nagala dumiyay 3,000 oo qofood nagala dilay ma dheenino anigana maanto dhan labadaas qofood ay dileen ninkaas iyo naagta cadaanka ay dileen maali alla keeno waa ku soo qoran jirno meel hadda tago oo microphone la dhiibo oo qodbaynayo waa is oohaysiinaya aniga xitaa no yeah because anigana way ku tubaraacayaan mogta wadankan waxaa ka jiro wax tubaraac dhaafaya jiro no maraykanka haddad joogo waxay ku leeyihiin holocaustiga dadki oo la dilay yuhuudda annakoo dhalanin la dilay maali alla keena ee waxay rabaa in la xuso ilaa hadda lacag baba ku aruursadaan holocaustiga ilaa hadda magdhow bay dunida ka aruuriyaan inteeda kale qof aad wuxuu leeyahay should the president of Somalia respond to Trump ana hadda madaxweyne Soomaaliyeed ahaan la horta waxaan ilaa xeradan dhan oo xaalana la dhahaa waa bixirayaa waxa joogo dhan badan ay waa la weydiiyay su'aashaas maadan arag muxuu yiri TV العربية بلغة ورستيو ويديسي تري كورن مدحوينها مريكن كويري Soomaalida ku tilmaamay qashin iyo waxyaabo quruna annaga waxaas kale kuma jawaabna buu yiri in namana qabato yani hadalkaas meeshii loogu talagalay kumuusan dhicinin annagu waxaas ma naqaan dhaqankeena iyo diinteena midna ma ogola inaan qof waxa ku tilmaano marka wax laga jawaabana ma ahan buu yiri cidii tirina meeshii u waday meel sax ma ahayn horta si hadii loo fiiriyo xoogaa tabar dareera iska jirto oo marka iyo maxay ahaatay soo dhawaaw maanka yare maxaa intee joogtaa maxaa nagu darsanaysaa meeshaan waxaan uga hadlaynaa weerarka Soomaalida lagu haayo ma maqlaysin qofkaas waxba waa pause ku dhacay marka anyways waa runta marka dowladda Soomaalida hadday xoogaa uun jawaabeen ani inay jawaabeen uma maleynin xoogaa comments ka aqrinaya qofkii su'aalo qabo commentaas ee ka wararsanaa warka abadno ما وأوجه لكن دتك قاعد دت أخيارها كجيران ما الأخير كرنا ورقة وكل جوجا ما راح ما يشتهي هنا دتك بدنا ورفي عن الشيء يعني إنك استجنا عبادان ما كسو هرينا يدوه يعني بس حسين لكن ورقة وكل جوجا بمتن ما وارثة ولا شيء سعد عادي كورن سيكولتها ما دام مريك كما قنتها ماشي جوكتي قسم معنا أنا قيبت كومنت قيبت ديج مركو إكر أنا جوجنا جمعها أنا وحأس أركا أساس قدومه حلا سوق ماشي من جوكتي تجا أنا سماها أنا عارف هنا شيء والله دتك بدنا الدفاع Soomaalida u taagan gabdhay u badan yihiin runtii ina gabdhaha hadaan joogin xitaa oo gacan wax ku qaban karin comment hadaa ku sii cilbaxan ducaa soo kaba ma fahant ilaa isho dadka anaga qabta xasidiinta صح waay marka aniga mar dhawaa sii joojinaya live-ka fadlan waa mahadsantihiin waxaan kaliya isku dardaarmaynaa weerarka nagula haayo inaan difaac weyn wada galno inaan ogaano qof waxa soo galay oo calanka u saaran yahay who is yaway kali gibit السلام عليكم صاحبي وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته meesha joogtay waxaan ugu darsanayd ما شاء الله انا horta waxaan joogaa suuqa xoolaha Minneapolis joogaa ما شاء الله suuqa xoolaha صح meesha waxaas ka dhacday meesha waxa ka dhaxana wallahi ما شاء الله ku joogaa waxa wada adiga warno haaye maantana ilaahay waa naga saaray 700 maanta sii bixisay
marka maasha allah kulley hadda wax walba okay waay alxamdulilah adigana waxaan ku dhihi lahaa saaxiib hore u soco maasha allah geesi soomaalida noo jooga meeshaan ataa saaxiib hore u soco dadkan waxa waaye waa saa u sheegaysa hadaato waxa waaye ayaga macnaha qofkii maaragtay oo ayagaa naga cabsanaya dadkan waxaan dhan oo buuqan u furayaan waxay fiirinayaan dadkaaniyo wadankooda noogu imaaday ama wadanka naga qaataanbo cabsiya waxaan ka keenayso iyo maaragtay dadkan inay arkeen dadkan inay yihiin dad oo soo galootiyaasha kale dad ka firfircoon oo maaragtay soomaalida ma garatay صح marka dadkan waxa waaye kartideena iyo kalsoonideena aa keenayso ayaga waxay u cabsanayaan wax kale ma because Africa American wadan ku dhashay xitaa aysan saas ugu cabsanin hadda Soomaali meel walba kuwa Africa American oo masayrana arkay wallahi haday oo dhahayaan maanta dhan Soomaali maxaa looga hadlaa kula anaka meeshan wadankan 400 sano joogto goran ya si fiican marka saaxiib wallahi hore u sax ku dheelaha saaxiib ma walba waxa waa jiraa'idkaaga iyo casharada soo saartid iyo maarad wax soo saada ku tageera Prime Minister maarad wadanka Soomaalidana waxa waaye wada gacmaha wada jurugoya waa in gacmaha isqabsano macnaha dadkan kale oo maarad always ogo mar walba dad qoomiyad meel hadii joogto dad oo ayaga loo isticmaal waa laga helaa waa iska badan wax su'aal adduunka waligeed jirtay ma garad maya waxa dhan oo bas sameynay waxay tahay wacyi gelin aniga waxaan rabaa mar kasta qofka Soomaaliga in la xisaabtamo aniga hadda aydan waa in la xisaabtama waa in la celin karaa hadaa maanta inta baxo aan magaciina wax ku raadsado waa in ay dhigi karto yaa anaga arintaas naguma matashid laakiin waxa arkaysa kuwa qof soo caayinaya Soomaalida isla kii soo caayay Soomaalida sida Jajus boy af Ingiriis markuu af Soomaali ku caay oo af Soomaali ku amaana qarkoon xilin ninka wala waa fiicay lajan maxaa waay suukar baash wallahi anigoo asaga oo neceb ka naxay isdhahay laa ilaaha illa inta tagi wagariira warina dadka noocaas saaxiib ada ilaahay nooga keenay idaa noo joogtid wallahi kuwaas waxa waa waligeed dad saaxiib oo dadka oo la isticmaalo way jiri jireen maxal ilaa iyo sayidka xataa gabiyadiisa hadaa fiirisid dadka oo gabiyada ku sheega dadka waxa waa gaalada daba raacay waligeed wax iska jirtay saaxiib marka geesuguna waa ninka saaxiib dadkiisa maaragtay aakhriya adduun maaragtay meel fiican jooga anigu dad muslimadan dadkana waxaan dheernaa dadkan soo galitada dhan waxaan dheernaa saaxiib waa muslimaduna waa iyaduna waa hawl adag dadkan ay la qilaayin oo ku adag oo dhinaca diinta hadii laga fiirsho xataa dadkan codad gaar ah naga qabaan soo moogay because muslimka moogta waa iyaduna moogta marka meelo badan baa dadkan aan u soo wadankooda la imaanay ay waarun booga badan anaka ka damqinaynaa mid waxaan nahay dad muslim ahaan nahay oo muslim basna ma aha dad awood lahaan nahay dad awood leh Soomaaliga qofka wallahi hadda ka hor maxaa sheekay yar oo dhacday idin sheegaya niman Soomaali yaa hadda ka hor gabar Soomaali islaan Soomaali walaashay ku turjumaya isbitaalay joogtaa inay Soomaalida inay qamarjiyaal yihiin idin macna qamarji ma ka wada waxun maamada waxay dhahdaa fiiriya maamada ayada loo turjumo maamadana ayada mashruuc kale wada taabo mashruuc maxaa gabadha waxay tiri wareey gabaray bal iisu kulaha aniga caafimaadkayga bal meel idhig maamadaanay tiri naagtan dhakhtarada ahay tiri bal iiga turjun waraa rabaa inaa u sheego fariina inaa iga gaarsiisin rabaa hay waxaad ku tiraahdaa war diinta islaamka qaado ya ka waran waxay dhahdaa diinta islaamka qaado waa ku barwaaqa ka helaysaa aakhira janna ku galaysaa kulaha qofka Soomaaliga xitaa manaxa war cadaankan tirada badan xitaa uu ka tagay xoogaa maarin yara soo noqon lahayd kulaha ka war wax dinaysa dacwadii ka war meel ugu dhaxgulis waa geesinimo waa dacwada macnaha waa qof asaga la caawinayo oo asaga jiran asaas u dagaalamayso wixii arkayaan waxaas waay dadkan marka meel fog waa aad iyo aad saaxiib aad iyo aad Soomaalidana saaxiib waxyaalaha badan hadda maalmood waxaan daawanayay documentary laga soo duubay oo ay ka fikirayaan sida dadkan dhalmayrada hadaad mar ka hadlaysa dhalmada Soomaalida inay ku badan tahay dad waxay jiro ay ka fikirayaan inay joojiyaan iyo waxyaalaha u keenaya inay Soomaalida so much inay wax dhalno ciyaal ku badan yihiin dhibaatada ugu weyn ay qabaan oo ay ka fikiraan waaye waxay arkeen iskuulaadka elementaryga la fiirina ma ogtahay elementaryga la arko waxa la leeyahay wariya kuwan way soo socdaan wallahi because 10 years 15 years from now dugsiga sare gaarayaan jaamacadii gaarayaan kambaniyadii gaarayaan waa noo dhamaatay waa marka anaga ayaga waxay ogyihiin nursing home ku abuuraya nursing home kan Soomaaliya iska leebano exactly wallahi bila waa u jeedaan meesha ku socdaan u jeedaan hal loo ka fakatay maqlis odaga oo madax orange uu ka fakatay u dhahayay dadka ma umaleynaysa yihiin waa IQ marka macna say yihiin ma umaleynayna macna mar uu baaradka ka hadlayay saasoo dhacay anigu gurigan indhaha hoosteeda wax naga qaatay intaas bilyan because fiiri waxaan iskabanay dadkan waa doqomo iyo isma kariso soo dhawaaw farxaan
عامل aad iyo aad بل ماشي جوكتدي waxa ku dirsanaysa noo sheeg Minnesota suuqa xoolaha. اوكي ماشي والله Minnesota waa shilintiin والله adika ya aad iyo aad saaxiib meesha stateska anaga iskale saaxiib stateska anaga iskale Annaga roobka nugu daa infant. والله aniga markii ma taqaanaa oo boring qabto markii aan maxay meelaan iga hortimaado markii batteriga charger-ka imaado wata imaadaan Nin yahow meelo dhadhow baa wax ka fiirinaysa infant. ay Bahasha marmar qaar waxaa laga fiiriyaa dacda side infant. ay Markaa ka soo tagno waxyaalaha hadda socdo dhan mar haddaa maqashid meesha madaxweyne kama jiro macnaheedu waxaa waaye meeshaasa tegayna waa ku duulayna dadkaasa badbaadinaynaa waa infant. meesha kadaas way jirtaa waa la ogyahay baa صح waa Aniga marka waxaan u digayaa madaxda Soomaaliyeed u digayaa infant. waa loo ku soo socdaa had leedahay Aniga waaba ka tegay hadda Minnesota iyo Minneapolis waa ka dhaxbaxay. Ayaga u digaya ayaga waxaan leeyahay bir meesha inta la imaadayaan la dhihin adinka la idinka badbaadinaya dalka infant. may laakiin tabar maxay ku fiican tahay Donald Trump hadda waa iska hadlaa koode tabar wallahi oo wadan ku gumaysto ma bahaystabo waagi Soomaaliya fiiri ayadoo saan ka tabar yar gaaya oo hal general Aidid oo meesha taagan yahay ee ka soo carareen maalin cad Mareykanka dadka askarta adduunyada waxay ugu neceb yihiin Soomaaliya habarteeday ka tahay madaafiic ورينا قدومي يورت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ورتواني السلامي خاصة أديك سي آدي آد بانكو تاغيرا بقول تاغيرا حاجر لعان أفي ما آدي شاء الله سومالدو waa dad nooc kala ah laakiin adoo kala haday wada reality ku sheegaani baan uma aqaan qofka waa fiiriya waa dhageystaa laftiisa hoosan si fiiriya marka qofka ay dhab ka tahay inay ruwaayad ka tahay Soomaali ruufiyaan oo kale umad isku wada bedelayaan dhow ma garat xaqiiqda dhabta Soomaalidu haday adigoo kala wada ahaan leh dalka iyo dadka iyo diinta inta wadna hagaag lahayn laakiin waxaa jira qof Soomaalinimadiina حاجة كالا أو هنايا حاجة قبيل كي كسيشدي حاجة بلايا كلا كشدي يوم إحنا اللي وين تصل ريالتي كم كلا جهل متشرا قف نظيف ما هنا وابن سوشيال ميديا horta fiiri dad badan oo wallahi halganka ku jiro runtii aniga waxaabaha hadda aan rabo ina aniga qaadanin maamooyin Soomaaliyeed oo aragtay qabowgaas jiro oo sambuus qaybinaha arkaysa wallahi marka arko waxaas aniga nin dhalinyaro ahay nin awood laha ahay waa hadli karaa aniga adiga maama Soomaaliyeed marka ay sambuus qaybinayso kulligeen inaan soo wada baxno waa ma garanaysaa warunta reality waa taas laakiin anigu midaan kaaga wado waxay social media la imaanaya islaamnimadii Soomaalinimadii dhiiranaantii waa laga horeeya halkaana waxa uu laaban hamburger qabiil ah waxa soo fagaraya qofkii wareede xaqiiqda iyo xalaasha sida adoo kale waxa la rabaa 24/7 Soomaalinimada inuu ka degin afaraatan ka saak adika ma degtid wixii meesha laga hadlo Soomaalida looga hadlayo waa taaganta haddii mitiin raacay waa taaganta adigu waxa taaganta Soomaali meelna ma dhaaftid laakiin dad waxa jira niyow adiga isku ka akaysinaya hadhowna ninkii aad googeed white ka blue buu noqday what's going on I don't know waxyaabaha qaar horta waxaa keena ma taqaanaa ya annaka inaan accountability samayno waay qof kasta oo Soomaali in lala xisaabtamo waay qof kasto aniga hadda idin la hadlaa waa in la xisaabtamo ya wallaahi waa jeclahay marka la xisaabtamo wayna dhacdaa mar badan qofa hadda ayaan dhaweeytay nin Soomaali ah oo waxaan arkay oo ice la taagan ice-na waa taqaanaa dagaalka isku la jirno waa xanaaqay hore waxaan ka soo geliyay picture-kiisan soo geliyay adiga waxaan dhahay Stockholm syndrome oo qaba waa qofka asaga isku maleeya dambiilaha asagoo la dulmina ayaan dhaweeto ninkii la soo xiriiray walaalo wuxuu ugu dhahay waa ugu gardaro tahay picture-kayga soo gelisay sheekadeeda lamaadan soconin aan bal hadda ku sheego hay igu sheeg wuxuu ugu dhahay warniyo dad la xiraayo oo Soomaaliyeed aan ka badbaadiyay hay nimankii aan la hor istaagay wala hadlay markii aan ka badbaadiyay nin Arab ah ku jiray oo yiri ninkii Arabka wajiga wada duuban lama kala garanaa mogt ninkii wuxuu dhahay sawir aan kula galo macnaha maadaama maslaxa sameeyay sawirkii markii aan galay aan la soo geliyo dhahay laakiin nin dagaal ku jiro ba ice nacab warniyo waxaan dhahay niyo maaleesh يعفي لا واكو عفيو لكن هذا دان كسر بس عنده dad badan aan jaa ilaan boqolaal kun oo qofooda laga yaabo inay sawirka aragtay marra baan dhahay inay aniga dambigaas iga soo gaaran inta tago on video sameeyo aan dadka runta u sheegaya isla videogaas aan ninkaas ku raali gelina kuwa caayiso qoraa waxay leeyihiin marka hore ka fiirsano war ma fiirsana anaga qof ay isla taagan hada aragno
wajaaj garaynayna markaas ya wixii soo baxa gadaal hal maya horta aqoon-yahan nin dhalinyara aqoon-yahana oo aad iyo aad soomaalinimadu ku weyntaa xaqiiqda markaan fiiriyo waa dadka in loo tababaro u baahan Soomaaliya inaad madax ka noqotid baa ku jirtaa dad yar baa social media ku soo raacaya gabdha iyo wiilalba waa dad yar haddii la xisaabo oo xaqiiqda dhabtaa anigu horta been haygu imaan reality runta haygu imo qofku wuxuu yahan farta ka saaraa ice Soomaalidu waa ka gudbi karnay waana meel baan kusoo xiri karnay laakiin annagiibaa waxaad yara moodaa dad badan inay ugu dhex jiraan oo maaragtay siyaabo qaldan ama hadallo maaragtay gaf Soomaalida ku ah dee social media Soomaalida waa aragtay ayagaa jifo iyo qabiil iyo laf nafta isugu keenay wixii bay la wada tageen meel walba ma garatay dad tuugaa ma jiraan way jiraan waa dad yar adduunka oo dhan ma leeyihin waa leeyihin annaga keliya maxaa naga raadsanaysa dadka waa wada badan yahay ummadda wada saaciya waa si yaro gaaban wixii waa lasoo afjari lahaa laakiin waxaad yara moodaa dad raba lugooyadaada oo Soomaali ah inay waxyaalo badan sii qaseen warqa xaqiiqda dhabtaa markaad baartid marka niyo inay way waa aragtay Soomaali ruufiyaan inta qof oo taageeraysa waa aragtay 40 saacadood iska daay war ka hara aaway waa aniga finish halkaan kuwa waxay dhaayeen iska day gaalada مش حماشي أنا ما جينا موس كده أنا اللي كان دوكاد لا يفير جغرافي تاريخ دوكاد لا يوحنا كشيء لكن أنا بقول له يا عمرو نقدر برادر وحبان فيري dadka dhaqan xumada waxaan caadad u lahayn soo gudbinaya oo for example oo kale abtigay baa faraxmay adeerkay dadka noocaas markii aan baaray wallahi kulligood waxay noqdeen dad aan diinta ka baxay waa hore islaamba ma ahan fiir waa dhaqankii baa marka waxa la ka dhigaya Soomaali mana والله ha mana waxa marka u fiirsatid social media teertan ku gabagabeeyo ku siinaya social media marka u fiirsatid waxyaalo badan baa ku soo baxay baraarta marka inta wax fiirisid oo dhageysatid oo baartid waxa ku soo baxaya dadkan Allah leeysin dadkaaga inaysan warayna salaamaya dhamaantiin nin culus soo galay wax yar fiiri nin oo buug qoray oo la yiraahdo booyax oo aad iyo aad u qiimo badan Gregorin waa u jeedaa ninkaas Roboyax soo dhawaaw ninkan buug wuxuu qoray la dhaho America made me a black man macnaheedu wuxuu sheegayaa wadankan sida annaga isku malayno iyo dadka si noo malayaan ku soo dhawaa booyax السلام عليكم ساتين waa ku fiicanahay ii waran xaaladda socota maxay see waragtaa you know you are one of my heroes ما adiga waa adiga aniga ana waa iska qeylay adiga academic ninki adiga waa ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واحد عم بقونيسا واحد عن waxa weey society-ga every society waxay leedahay dad u soo baxo runta u sheego hago society-gu ma taqaanaa isma hagtay waa la hagaa waa inay rag u soo baxaan iyo dumar weliba rag because ragga mas'uulka ah caruurta iyo dumarka marka dhaqankeennii haddaynu ku laabano suu ahaan jiray waxaan u malaynaa waxba naga maqaldamaysa laakiin mid kale aniga kugu soo celinaaye ka waran maxay kula tahay dumarkiina kuwa weeraraya ka waran ragga weeraraya qaarkood ama se dadka ka celinaynin ka waran hadda Ilhaan Cumar Deeqa Dhalac Maana Cabdi gabdheena oo waa taqaanaa oo hortaagan Zaynab senatarada macnaha kuwa la doortay iyo kuwa la dooraninba dadka weeraraya kuwa ugu hiilinaya ka waran dadkaas wallahi de waxay ka mid tahay burburkii Soomaaliya burburtay bay ka mid tahay maadaama ummadda markay burburaan priority-gooda waa ilaawaan ma garata sax dadkaas gabdhahaas waa isxilqaameen waa wax fiican bay suubiyaan hadda aniga Minnesota joogaa protestyo badan baan ka qayb galaa qof kale ma arkaba dumar dagaalamaya wallahi hadda andahay maamooyinka Soomaalida sambuuska bixinayo waran raggiina qaarkooda meel ay fadhiyaan shaah cabayaan ka waran qabowgaas ma raba inay soo baxaan wallahi billahi tallahi dumarka Soomaalida heroes hadaan wax qoro ha ogaada wax fiican ka qoraya because waxa waaye way dagaalamayaan marka qof inaad la jirtid ma ahan kama soo horjeesan kartid hadda wax u sheegaysina hoos wax ugu sheeg hadda mid kala jirto gabaraa jirto oo mar dhow la ogaaday inay Soomaali tahay Saara waxa la dhahaa Saara Soomaaliya isku bixisa ayamahan you know maalin kasta dagaal ay ku jirtaa mar waayada aabeeda Soomaali ayada waxay noqotay hadda dhow la helay DNA lagu helay waxaan arkaysaa dadka Soomaali qaarkeed oo caadi oo lagu soo koriyo hooyada aabbo Soomaaliyeed oona dan ay hela kala heed maanta dad la hadlay waxay ku leeyihiin
مرت أرنت حالات مريك كسرت مقتة ما أجي أنا وقت ما هاي قفا كده هاي كور هذا بيري ري بوستن أتاي إن meeshaas ka imaaday dana kale aan leedahay Minnesota joogta waa ku arkaado oo protest ku jiro waxba qoraysa ka waran dadka magaaladan jooga haday rabaan oo shibiska ah ka waran oo weligood protest tagin because waxa waa fiiri taariikhda America ma isfahansana ta America ninka u dagaalamo xaqiisa ayaa wax ku leh nin qof wadankan degan oo wixiisa xaqiisa soo dhacsan waxba kuma lahan marka wiilka Soomaaliga wuxuu og yahay inuu ogaado in wadankan haduu ku nool yahay citizenship yahay inuu u dagaalamo gabdhaha dagaalamayna uu support gareeyo haduu asaga sambuuska qaado hadii uu protest ka mid noqdo oo laakiin isqarqarin ma garto hadda waxa kale oo noo sheegtaa maadaama hadda jaanis yar haysano buugaada arinta hadda socoto muxuu ka leeyahay macnaha marka qoraysa dabcan way ka horeysa weerarkan ugu lahaayo weerarkan 10 buug ku jiro oo weerarkan naga caawin kara ma jiraan book oo dhan actually exactly hadda wax socdo ka hadlaya dadka hadda soo wacayo oo book foreysanayo waxay u badan yihiin madowga dadka madowgaana waxa wadankan way og yihiin waxa uu yahay overy waa ogaayeen laakiin annaga waxaan iska dhigaynay dad aan ogeyn waxaan isku dayna annaga wadankan joogno inaan sidii Soomaaliya u dhaqano oo inaan xamar joogno camal aynu ahaano mataqaanaa aad ogeyn wadankan joogaan marka maadaama aan saa ahayn waxa imaatay wixii aan qoray oo dhan baa hor imaaday marka hadda wuxuu noqonaysaa waagi hore dad madow kaliya dagaalami jiray dad madow kaliya mataqaanaa xaqan soo dhicin jiray annaga xataa inaan wadankan nimaano dadka madowga ah dagaalkii ee galeen 1965 Immigration Act ayuu ahaa wax dadka Afrikaanka wadanka imaaday in loo ogolaadaba waa dadka madowga dagaalay ma sheegaya arrintaas ma ka hadlaya Civil Rights Act 1965 wuxuu leeyahay the reason why I'm here wadankan waxaan u joogaa because of the protest of 1965 it says thank you to Malcolm dada noo soo huray naftooda sababta anagu oo dadkaasna madow u badnaayeen that's exactly what wuxuu dhahay anaga marka qaar waa hilmaamnaa moogta arrintaas niyo ma hilmaamin anaga waxaan isku daynaa anagoo waxa arkaysa qof 30 sano halkan joogo oo wili ku qofilan tahay inuu laabanayo oo wadankan ogeynba waxa ka socda ogeyn iska shaqaysto adduunka kale isaga nool wadankii uu joogay waxa la all politics are local sax guriga meesha aad degan tahay aniga meeshan deganahay waa 3 mar ayaa dad cadaan noo imaadeen sax soo gargaraaceen maxaa la albaabka waxay noo keeneen firimbiyaal markii ugu horeysay maalintii Alex la cunayena way noo imaadeen ayagoo oynayo waxay dhaheen waxaan raalli ka banihin waa idin la jiraa raalli ahaada cadaankii baa waxay u dagaalamayaan xaqeenii annagiina waa dhuumanaynaa waa ceeb والله ميلان بنان بحان تقعني هالجبر الصومالي بس الجوجن لبدينا waa speakers ana ya dadka meesha la daawanayo dhan waa cadaan iyo ajaanib kale neolax ma la dhihi karaa dadka xogaa cabsi baa jirto oo maadaama dadka Soomaalidu oo yihiin dadyaahii ugu dambeeyay oo wadanka soo galay hadii loo fiirsho macnaha dadkan taas waa lagu garaabaa laakiin qofkii wareykanka fahamsan waliba ma ujeedaa inuu arintaas cabsada maaha kuwii cabsi hayso waa gara karaa cabsida waa wax oo qofka bini'aadanka marka qaar ku beermi kara runtiina weerarna wuu jiraa oo hadda aniga midkaan xuno jaajuus boy la dhahay aniga haddaan ahaan lahaa qof oo jilicsan waxa oo dambi igu soo sheegay dada wuxuu uga dhaadhiciyay diyaaradan qarxin rabi wadankan waa ogtaa argagixisnimada si looga cabsado wallahi dada waxay ugu dheen yaa waxaan faraha isku gagashan iska aamus maxaan dhahay war ani iska dhaafaan ku dhahe aniga guriga hubaan haysta hadda actually soo gadan rabaa qoran kartaa waa caadi waa sharciga waa sax laba qoray haystaabo mid kala soo gadan rabaa oo waxa la dhahaa new AK47 oo maxaa la yiraahdaa oo pistol leh because waxa wadanka aniga xaqan leenahay of course waxa cabsoonayo marka niyow wadanka hadii loo gabdad in wax gelin u baahan yihiin in loo sheego maadaama idinka atiin ragii oo social media iyo yarka kale masha Allah boyax asagala turkiis wacdi gelin u baahan Soomaalidu ma dhihi karo oo waxa loo soo furo maartay beeshish noocaan oo kala ama se loo sheego inay saabsino soo baxaan oo dadka cadaanka la soo because hadda marka fiiris aan waa jooga meesha dhan oo Soomaali ma arkay Soomaali badan kulli guriyaha ku jireen dadka dhan banaan ma joogeen marka dadka in loo geliyo Soomaali waa arkaysaa dumar Soomaali arkaysaa rag waa arkaysaa but as much we will say 60% 70% didn't come out
like si loo degan yahay si u soo bixin isma lahayn waa number yar soo baxay hadii loo fiirsho Soomaaliya waa sax sina waa ku eedeyn karnaa Grigori soo dhawaaw Grigori waa nin oo hoos wuxuu ka yahay X ay ka war maxaa ku darsanaysaa aad iyo aad baa umahadsantihiin but like labadiina waa niga soo horjeedaa adiga Abu Said iyo Boy waa niga soo horjeedaa you guys are against law and order ayaa ka soo horjeedaa adiga niyo troolka xilligeeda waa la dhaafay siyaasi waa nila kaftabay ku socda maya waa mahadsantahay horta soo dhawaaw law and order waa sida sheekada dhahan law and order ka soo dambaysa marka la dhaho waxaan dhahaa Donald Trump waxa waaye ninka oo maxaa la yiraahdaa oo waxa dambi oo la sheego san galeen ba ma balahaba ninkan Epstein hadda waxa waaye waxa la yiri 38,000 oo jeer lagu sheegaa la yiri feelalka ilaaha idinku dhaariyay 38,000 oo jeer meel lagu sheegay waxa waaye waa meel aad degan tahay ba ku jira aalanka lagu joogay meesha lagu joogay Epstein xitaa asaa uga badan aad buu uga baqayaa magaciisa hadda naga sii jeeday Soomaalidu oo ka baqay waa faylalkan cusub 2017 waxaan ka qoray essay la dhaho Danger in My Belly exactly waxa aan qoray 2017 oo waliba award aan ku helay waa essayga aniga soo saartay inaan noqdo qoraa waxa ku qoran waxa uu yahay qof walba uu ogaa ninkan waxa uu yahay laakiin waxa jira laba wax nafsiga laba uu kala baxaa mid waxa la waa individual oo qof shakhsi ahaan uu nafsiga u soo laabtaa midna waxa la society ku soo laabtaa society markay dambi gasho waxa jira qof fuliya ah oo Ilaahay u soo saaro dulli ah oo horkaco dadkii oo dhan god la galo qofka individualka markuu dhaqsi galana kaligiis bay ku soo laabataa qofka for example maaragtay caasiga ah qofka dambiyada galo nafsiisa ka galo asay ku soo laabataa waxay u egtaa arrintan America iyadoo dhan way ogeyd ninkan waxa uu yahay way ogaayeen inuu dambiile yahay way ogaayeen in convicted yahay way ogaayeen laakiin at the same time way u voodeen oo madaxweyne ka dhigeen haddana wuxuu saaray jidkii burburka aniga marka waxaan dhihi lahaa nafsigii America gashay maalintii la hadda ayuu ninkan fulinayaa waarun absolutely nafsiya ka soo baxay laakiin hadda Ilaahay inuu naga badbaadiyaan rajaynaynaa waa idin salaama akhyaarta waa soo gabagabeynaya meeshan howlo kala igu soo furmay waadi aad u mahadsantihiin dagaalka hal lagu jiro hal isku duubnaado maxay dagaal naga weyn aan ugu socdo asxaabadeena hal wada faalo gareeyo Grigori Boya kulligiin alles wada faalo gareeyo وكو سلامنا بويا ونيو waxaan ina book ka wareyste waana ka codsaday x band deganahay oo ku hoos gareeya people marka Boya come through niyo book ayo ku salaamay waa si bixi rabnaa waxa lagu sheegay ma jiro You think I'm stupid, eh? It's real. I don't want it. I don't that fucking $5.